waxaan rabaa dhowr qodob oo dardaarna inaan idhaahdo sida doctorku sheegayay xafidahullah wa jazaahullahu khayran iyo culimadii ka horeysayba ilaahay ha barakeeyo runtii dardaaran fiican bayna siiyeen caawa wada fadhinaa qof walba geeridu meesha u soo jirto ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala waxaanu ku daba jira geeri marka dhowr qodob baan rabaa waan qodobaynayaa hadalkayga oo dardaaran ah kow waxaan ku dardaarmayaa عليك بالإخلاص فإنه سر بينك وبين الله وحي عملي آد سمينيسو عبادة إلهي يقول دوانيس أما أدونه آد إلهي دينتي سي خيرك أكاشنيسو طاعد نمو يدر إلهي أصمي الدنيا إيا أمان تيد إيا هنتيد إيا حمقعهين تيد حبها كل هاديني إخلاصكو يداعد نمو دوا سر قفك إيا ربك يقول حيسا marka waxaan idinkula dardaarmayaa oo nafteeda u sheegaya camalka aynu samaynayno oo qof waloo ina ka mida uu samaynayo ilaahay dartii u samee ilaahay dartii u samee cidna waxba ha kaga raadin ilaahay wuuna kaa aqbali waana kuu barakayn wuuna kuu badin wuuna kugu jeclaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qodobka labaad waxaan dardaarmayaa sunnaha nebiga raacidiisa inaad ku dadaashaan قفكي سنها نبي راعة عليه الصلاة والسلام قصلي النبي عليه الصلاة والسلام وحو كفو هذا بدعو هي خرافات هي قشن بكفو غانية سنها النبي إلهي وحو واتبعوه لعلكم تهتدون وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحي رسول كل يمد خير أيا سكست هدان يلا مرة ما ينكر نبأ marka qof kasto ina kamida amalka aad samaynayso inta aadan samaynin waxaad iska fiirisaa ilaahay amalkan ma jideeyay rasuulkuna ma nasoo gaarsiiyay kitaabka iyo sunnaha amalkan ma ku sugan yahay hadduu ku sugan yahay ahlan wa sahlan haddaana ku sugnayn ka carar inta bahal laga cararo iyo cadow ka carar taas waa dardaarankayga labaad oo sunnaha nebiga iyo raacidiisa iyo ku dhaqankiisa dardaarankayga saddexaad aan dardaarmayo qof waloo ina ka mida waa inuu xaqiijiyaa oo ka run sheegaa ujeeddadii ilaahay kuu abuuray ee adduunkan kuu keenay ilaahay adduunka muxuu kuu keenay waa cibaado ma lagaa helay oo ma la timaadaa ilaahay cibaadadii uu kaa rabay ilaahay qof walba maqsad baa loo keenay meesha maqsadku waa cibaado ma tukataa shanta salaadood sidii ilaahay rabay ma u tukataa بس صار ربطات وتكتا هذه محل قاعد ربطات اسكت تكتا شنت صلاة ما تكتا مساجد كما كتكتا عبادة القرآن كما أخرسا ورد كما الله تمادا سنياشة صلاة فرض كالله سعودة ما تكتا ضحى ما تكتا صلاة الليل كما تكتا ذكر إلهي ما بدسا أظن إلهي عابد ما تهي هذا اسودي هذا اسكت هذا جوابي كر هذا جوابي كر هذا يسوق إن نفتي الله مرون حنكون دردار مركا قف كستو إن كمده جار كيس بل هاي سح القامو وهو كفكروا وتشددي إلهي عبادة هيدا يكون كاني ما هي سامس ما هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا قضب قاسوا دردار قضب كحجة دردار ما يو ضدك مسلمين تأه إذا مسلمين قال بهذا اللي نوشي ضدك مسلمين تأه afkaaga iyo adinkaaga iyo uurkaaga ha ka nabadgale ummadda muslimka a nabadgeli soo qof muslima ma tihi muslimka ilaahay nabadgeli afkaaga ka nabadgeli carabkaagaas ka nabadgeli gacantaada iyo lugtaada ka nabadgeli naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo sharaftooda u nabadgeli muslimiinta haddaad dadka nabadgeliso ilaahay nabad buu ku siinaya adiga haddaad dadka dhibto kuwa ku dhiba ilaahay kugu saliday kuwa gaalada alla joogtaan nabadgeliyo ha dulminina calankoodii iyo dalkoodii baa ku nooshihiin sharcigoodii baad haysataan way idin soo dhoweeyeen ha khiyaamaynina ha dulminina mid idin shaqeeya mid ganacsi idinka dhexeeya mid aad daris tihiin ilaahay uga cabsada subxaanahu wa tacaala waxa ugu yar aad aynu samayno ma taqaanaa waxaan madow doqomo weeye baynu nidhahnaa adiga in la yidhaahdo muslim madow oo doqonaatay ma rabtaa
maxaa u caaysaa dadka adiga nabadgeliya dadkaas gaalada akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanna kula dhaqma si hadduu sheekhu ka sheekeynaya qodobkaa waa ku dardaarmaya qofka aan sidaa yeelin wuxuu xusuusan doonaa laba waqti noloshaada adduunkana waad kadeedmi doontaa ilaahay hortii markaa tagtana amar baad arki doontaa qodobkaa waa ku dardaarmaya qodobka shanaad aan ku dardaarmayo cid kastoo xaq kugu leh xaqeeda sii fa acti kulla dii xaqin xaqahu aabbahaa xaq buu kugu leeyahay iyo hooyadaa xaqooda sii walaaladaa xaq bay kugu leeyihiin xaqooda sii qaraabada hooyo iyo aabba ka soo jeeda xaq bay kugu leeyihiin xaqooda sii xaaskaagu xaq bay kugu leedahay xaqeeda sii carruurtaadu xaq bay kugu leeyihiin xaqooda sii derisku xaq buu kugu leeyahay xaqiisa sii qofka beec mushtarka iyo ganacsiga tijaarada shuraaka ku tihiin xaq buu kugu leeyahay qofka masaajidka kugula tukada xaq buu kugu leeyahay kan waxbarashada xaq buu kugu leeyahay mid kasta xaqiisa sii xaqiisa iska sii fa acti kulla dii xaqin xaqahu haddaad cid walba xaqeeda siiso cimri dheerna waad helaysaa arsaaq waasicana waad helaysaa nabadgelyana waa ku noolaanaysaa haddaad dadka xaqooda siin weydo adna xaqaaga lagu siin maayo haddaad dadka ixtiraami weydo adna lagu ixtiraami maayo taan waa iga dardaarma waxaan dardaarmayaa hore ninka aan reer lahayn oo hore u guurso dhallinyaradu ha guursato qurbaha waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a qofku isagoo 30 jiro wiil yar isu haystaa inuu yahay 30 jir way wiil yar bay isu haystaa bal adiga 100 markay xisaabtu tahay 130 laga jaray maxaa haray 70 soo ma wax yar baa 30 adiga ya farahaaga taas waa imisa 5 way tanna labada lugooda hoosana 20 soo ma farahaagii waa ka weynaatay 30 baa jirtaaba bal xisaabi adiga 20kii farood waa ka weynaatay 30 jir baad guurso oo weli Soomaalidu waxay ku mahmaadeen reer hebel meel lama wada joogaan warna iskuma seeganay dhahan Soomaalidu xoogaa xanta waxa jirta meeshan qodbasirada ku badan baa leeyahay qodbasiro Soomaali cid aan ahayn oo taqaana ma jirto waa xaaraan iska daay iska guurso guur geesinimo leh guurso guur fulay ah xaaraan ha guursan xalaal guurso haddaa waxbarasho ku jirtaan oo gabdhihii waxbarasho ku jiraan idinkana waxbarasho ku jirtaan oo aad ka cabsanaysaan haddaa hadda guursataan arma caruuri soo korodhaa oo waxbarashadii gabadhu ka kala go'daa ama adigu kaa kala go'daa adduunka heer baa la gaaray jiib yar baa halkaa loo geliyaa gabadha ama kiniin baa la siiyaa ama irbad baa lagu dhuftaa 4 sano waxbarashada ah xaas isqabana waa tihiin shahwadiina isku gudanaysaan ajarna waa kala helaysaan ilmana ma imaanayaan da ilaahay qadar hadhow marka aad jaamacadda dhamaysaan waa kiniinka baa la joojin ama irbadda ama jiibka laga saar insha Allah awlaad baa la ku siinay marka guurka qodbasirada ah ilaahay ka cabsado iska daay nin baa wuxuu sameeyay gabdhuhu qodbasiraysan jiray waa qodbasireeya wuu furaa gabadhnimadu kaga ciyaara maalintii dambe hadda wuu dhintay Allah u naxariistay maalintii dambe ayuu gabadh iska miskiinado tuulo ka timi oo magaalooyinka Soomaaliya mid kamid ah timi oo maqaaxi intay furatay buu hoos ula hadlay ilaa waan khabiir ah waxaan ku takhasusay qofku wuxuu ka shaqeeyay oo ku takhasusay marka dambe gabadhii miskiinada ahayd baxay kale ugu rogay way aqbashay gabadhii buu habeenkii dadkuna inta badan hadda mooyaane waaga hor fircooni baa la isu gudi jiray oo gabdhaha waa la toli jiray way adkayd oo ninku midku guursado hawl culus baa la kulmi jiray gabadhii gudnayn fircooni gudnayd ninkiina waa ku xoogsaday habeenkii ugu horeysay bay gabadhii aad u xanuujiyay markaas waxay tiri alla yariga tag xiniyaha ilaahay ku qabay ninkii dib dambe hamad raganimo ah waa laga waayay gabadhii waa kala tageen dumar kale u guursaday eber sidii isagoo aan dadna dhalin hamadina ilaahay ka qaaday buu dhintay marka gabdhahan la khiyaameynaya masaakiinta ah ee loo sheekeynayo la qodbasireenayo la leeyahay caadi waa Caasho iyo Faadimo waa lagu guursaday oo runta moodaya wariye ku habaarin ninkaas waxay ku tiri ilaahay xiniyaha alla ku qabay wala mardama ma kacsanin maalintii u dambeeyay sidii buu ku dhintay soon dadna lahayn ninkii ilaahay baa ducada ka aqbalay una khiyaamay moogta guursada guurku waa barakaysan yahay ilaahay baa idin arsaaqaya arsaaq waasica haddaad waxaadan ku guursatay haysanna iska dhaaf guurka qodbasiraha ah isniinta iyo khamiista soonkaasa wuxuu keenayaa in hamadaadu jabto cuntada badanna iska yareen qofka haddaad cunto badan cuntid hamad badan baad yeelanaysaa
أما فيتامينات بدن مركز سيقود بصيرة دا استجديس الصون كان صون مالمهاس سنينها إيه خميسة بيشي سدح عشرة كصون عنتوين كفيتامينات كبدن إسكدا هذا الصون بتيجي مركز همدا هذا وجواز تاسو يقدر دار حنقدر دار ميا إناد meeshan transit baa lagu yahay baa liir bishii tobnaad ilaa hadda boqolaal qof baa tagaalay iska daaya gaalada wadamadeeda aadaadisaan ilaahay halkan idinku arsaaqaya halkan waa joogaa hamoodina in arsaaq idin kordhiso malaha hadal caawaad maqashaan waxaa ugu xun group 5 ninkii ku jiro ka baxa dadka ku socotaan baan idin sheegaya shariicada islaamku balad gaalo oo loo safro saddex qodob baa lagu tagaa nin walba dhigayso saddex qodob baa la ogol yahay in guri gaalo lagu aado koow dacwo ilaahayna u tagayso oo dadka diin iyo dacwo gaarsiinayso labo cilmi iyo waxbarasho dal muslim aad ka weyday ina u doonanayso oo marka cilmiga dhamaysta ka soo noqonayso saddex caafimaad inaad u aadayso dal muslim aad ka weyday dhaqaatiirtiisii oo aad soo daaweynayso oo soo noqonayso inta waxaan ahayn uma tagi kartid iska daay rasuulku wuxuu dabkiina yaana is arkin laa tara annaarahuma waa dad quruxdoodu waa qaawanaansho waad aragteen rag iyo dumar si loo qaawan yahay sharaabkooda iyo cabitaankooda waa khamri cuntadooda waa khansiir iyo doofaar wehelkooda waa ay jahannamana geedi bay ku yihiin dad baabuurtooda isku xiriirsaday oo guriga jahannamo la yiraahdo geedi ku ah baa waxaa leedahay baska noo joojiyo aan la raacnay hadda waa jahannamo geedi ku yahay u socda waa ummad dhan oo jahannamo geedi ku ah baan waxaan idin leenahay war baska ha la raacina jahannami u socdaane idina waxaa leedin maya horta bal intaan jahannamo la gaar dhexdan kaga digaynaaye si raacin waa in kula talin lahaa wallaahi wax lagu qosla maaha wax laga qiiroodo wey laakiin markaad tagtaan baad ogaan doontaan caawa idinla fududa kambaale markaad joogtaan laakiin markaad tagtaan markaasaa ogaan doontaan taana waa idinkula dardaarmaya waxaan idinkula dardaarmaya cilmiga shareecada barta rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلهي قفكو خير لا دون دين تفانسية دين تبرتا وحبرشة تعالى هل كان مادي أو هير سريعة وحبرشة ديميدنا واتها الله انت تشوكتان هدايد إننا وحكا لكم مشغول سنين وحبرتا ننكي مادي برانكرو برو ننكي دين تبرانكرو نبرو دين تنهو الرئيسي سي أديك يا إلهي حرير كأود حي أدوها جاجسو أو نجاسة سايد ساقا ظاهرسو ويساد وحي كاغا جابيسو عبادة وحي كوغو هاغاغيسو حلاشي حارانتا ادو كلا برات qodobka waa kula dardaarmay qodobka u dambeeyay ku dardaarmay laba qodob baa iigu dambeeyay xalaalka shaqaysto xaaraanta iska daay xaaraanta iska ilaali kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ninki shaqaysanayo xalaal iftiinka qoraxda oo kale ka shaqayso wax xaaraan iska daa hadaad xaaraan cuntid ilaahay salaadaada cibaadadaada ducadaada ma aqbalay cimrigaagan ilaahay waa gaabinaya inkaar baa kugu dhacaysa jir walba oo xaaraan uu cunay ku xoogsadayna ilaahay naar baa laga gooniyaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam qodobka u dambeeya halkeen ku gabagabeynay waqtigiina ka faa'iideysta dhalinyaro ay waqtigu waa dahab dahabka waa ka qaalisan iyo luulka dhalinyaro ay waqtigiina ka faa'iideysta oo cumrigiina ka faa'iideysta oo caafimaadkiina ka faa'iideysta oo fursadda iyo jaaniska haysataan ka faa'iideysta wadi kula dardaarmaya qofku dhalinyaro yahay cimrigiisa ilaa qaangaadhka inta ka hooseysa tamyiiska ilaa ay 25 sano inuu ka faa'iideystaa la rabaa 25 sano haddaad gaadhid mas'uuliyad baa ku fuulaya xisaabaad baa kugu soo baxaya waxaad u baahantay marka mas'uuliyaadka iyo xambaaristoodii iyo nidaamintoodii u baahantay waqtiga laga faa'iideysto xusuusnaada inay geeri idin daba taaganta geeri kullu nafsin daa'iqatul maut geeri baa ina daba taagan ogow dhalinyaranimana waa lagu dhinta dadka dhinta dhalinyara u badan la soco waayeelku waa yari hadda masaajidka inta fadhida fiiri dadka waayeelka far ku tiris way dhalinyarada badan dhalinyaradan dadka u bata u badan marka waqtigeena ka faa'iideysta social media fitnadiisa iyo qurunkiisa iska ilaaliya geeridana ku xisaabtama qofkii geeri xusuusan uu xusuusnaanaya ilaahay hortiisa intaasaan naftayda idinkaba u sheegayaa ilaahay waxaan ka bariyaa kulankeena inuu kulan uu noogu dambi dhaafay oo noogu naxariistay alla ka dhigo nagana aqbalo kala tageennana ilaahayna ilaaliyo masaajidda iyo dacwadda iyo maraakista iyo khayrka iyo culimadaba ilaahay noo xafido
dadkeennan meesha degan ee Soomaaliyeed dhammaanteen ilaahay ha inoo xafido allah ha inoo ilaaliyo waddankeena ilaahay nabadgeliyo waarta oo caama allah ina siiyo Soomaali meelay jirta ilaahay ha isu ururiyo ilaahay ha isu soo ururiyo ilaahay dowladnimadoodii iyo qarannimadoodii waaxidka halka calan ahayd ilaahay isugu soo celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga dalka iyo badda iyo berrigaba u soo wajahan ilaahay naga qabto waddankeeni nabad aynu safarkan kaga baaqano iyo aqoon iyo nabadgelyo iyo nicmo ilaahay waddankeeni ha inoo siiyo dadka wixii qurbaha ina ka jira ilaahay dadkoodii iyagoo nabad ah inoo soo celiyo diintoodana allah inoo ilaaliyo kuwa hadda ku jira imtixaanka ee safarka gelaya ee fiisayaasha sugaya hadday khayr u tahayna ilaahay ha u fudaydi haddaanay khayr u hayna wax ka khayr badan ilaahay isagaa og ha ugu bedelo hadda habaar maaha ogaada waa ducee allahuma salli calaa muxamed